dowlad goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay fadeexad dhowaan ku soo baxday taasi oo la xiriirta isku day ay kooxda dani ku reebeen in barakacayaasha Garowe u adeegsadaan diiwaangelinta doorashada ee ka socota maamulkaasi. Kooxda Saciid Cabdullaahi Dani ayaa loo haystaa xadgudubyo loo geystay dad barakacayaal ah oo degan gudaha caasimadda Garowe iyadoo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland uu shaaciyay in ay soo gaareen cabashooyin la xiriira arrintan, wuxuuna uga digay xukuumadda in ay u adeegsato hantida dadweynaha danaheeda gaarka ah. Qorshaha barakacayaasha loo daadgureynayay ayaa lagu sheegay in laga diiwaan geliyo deegaanka Bayla oo ka tirsan gobolka Karkaar kadib markii diiwaangelinta lagu muransan yahay ee xukuumadda Boosaaso ka bilowday aysan dadweyne badan u soo dareerin. Wasiirka haweenka iyo horumarinta qoyska ee Puntland Naciime Cabdiraxmaan Guuleed oo la hadashay telefishinka Universal TV ayaa waxaa lagu xumaado ku tilmaantay in barakacayaasha loo adeegsado diiwaangelin qasab ah. Wasiiradda marna ma soo hadal qaadin fadeexadda arrintan la xiriirta ee dul hoggaanaysa maamulka ay ka tirsan tahay, balse waxay ku gaabsatay in laga waantoomo falalka noocaas oo kale.